وحول لي يا أبو سعيد الخدري أنه النبي قال لصعنا سفر أيا وحى يمدنن دابت سارن أيا يمد مركز أنك ظروف باكم موقتا يباهي فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا وحو نينكي غدغلay oo bilaabay inuu aragiisa u wareejinayo midig iyo bidix saas inuu milicsanayo waxa weeyaan baahiya duruuf baa haysa bal qof wax u dhiiba oo xaajada iyo duruufta haysa la fududeeya dadkii buu eegahaya markaas nabigu hadlay calayhi salaatu wasalaam muxuu yiri nabigu man kana ma'ahu fadlu dhahrin faly'ud bihi ala man la dhahra lahu qofkii haysta gaadiid ziyaada ah oo daabad iyo rati iyo wax ziyaada wataa ha ku caawiyo qofkan gaadiid wadan waman kana lahu fadl min zaad faly'ud bihi ala man la zaad lahu qofkii wata sahay ziyaada ah oo safarka uu ku soo galay wax ka ziyaada qofkii wata ha ku caawiyo qofka aan wadan wuxuu yiri Abu Sa'id al-Khudri fadhakara asnaf al-mal ma dhakar markaas nabigu tiriyay xoolaha iyo noocyadooda kulli qofkii saahaysta saahayeel qofkii inta ka ziyaada inta ha celiisu u waday ila aan aragnay buu yiri qofna inuusan xaqba u lahayn wax ziyaada inuu haystaba qofba inuusan xaq u lahayn wax ziyaada ah inuu haystaba inaanan xaq u lahayn ila aan aragnay oo arinta aan ka fahamnay arinka isaga wuxuu tusinayaa khayrka in lagu dadaalo mar walba oo dadka la anfaco iyo qiimo arinkaas leeyahay saxaabada nabiguna sidaasay ahaayeen tarbiyada nabiga way qaatay waana min sifaati al-anbiya nabiga alayhi salatu wassalam markuu u yimid asagoo argagaxsan ummul mu'minin khadija radiyallahu anha xaaskiisi oo aragtay murugta nabiga ka muuqatay argagaxa ka muuqda bay tiri kalla wallahi ma yukhzika allah madat saamooday ma arinku إلهي بان كدارتد إلهي كهوجين مهيو إلهي كهوجين مهيو محايا لي إنك لتصل الرحم قرابة واد حريرستان وتحمل الكلب عليس كان واد حنبارتا وتكسب المعدوم شيء اللوايين واد كسبتا واد عنفع ذاوي قفك علوسنا عليس كواد لقاتا وقفك اسكو فيلنين عليس كأيا لحن بارتا وتقري الضيف مسكين كمرتقى وصرتا وتعين على نوائب الحق نوائبتا يا مصائبتا يا حادثوين كيا دعدوين كمركي جيران او عليسيدو اي جيراننا dadka ayaad ugu kaalmaysa hadaa tahay marka dadka culays kamid ugu kaalmeeyo oo martigi soo rahaya oo qaraabadii xariirinahaya oo wixii la waayo dadku aysan haysan adigu aad haysan bixinaysid ilaahay baan ku dhaartay ilaahay ku hoojin mahayo معناه waxa weeyaan qofka bulshada khayr u leh oo nacfiga u leh waa qofka ilaahay u naxariisanayo oo ilaahay masaa'ibta iyo balaayooyinka ilaahay mar walba ka badbaadinayo asaguna ahaanaya mar walba midka nool oo xayiga ah qalbigiisa iyo maalkiisa iyo caafimaadkiisa iyo badankiisu mar walba uu badbaadaya asaga ah maadaama ilaahay uu san hoojinahayn khayrkan uu ka shaqeynayo arrinkaasi wuxuuna tusinayaa xaaladda adag ee lagu jiro bishii barakaysanna ayna soo hayso dad badan ay shaqo la'aan yihiin kuwii aeroboorada ka shaqaynahayay kuwii tigidhada jarahayay kuwii iskuullada dhigahayay kuwii madaarista kala joogay siyaabo kala duwan in dad badan oo nolol maalmoodkooda raadin jiray in waxa weeyaan farahooda ayna waxba ku jirin oo culays badan u soo ziyaaday xilliga isaga ah oo lagu jira xaaladda adag qofka ka faa'iideysta oo liibaana waa qofka wixii kaydka u ahaa wax badan ka bixiya waa qofka maantay oo kale garab istaaga dadka ducafada ah oo masaakiinta ah maanta kala xasuusta weey وكان النبي يقول عليه الصلاة والسلام هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ميا الذين أرزاقيا أو الذين كوكو قرقاريا إلا ضعفاء موياني ذاتك ضعفاء أن حريصة أظن حريصان إيسان أيا إلهي إن كوكو قرقاريا أو إلهي إن كو أرزاقيا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
suuq xumada jirta iyo dhaqaale xumaha jirta dhaqaalaha xumaaday iyo shaqo la'aanta iyo cudurkan oo faafaya oo meelo badan gaaray iyo adduunyadii oo kala xirantay xaaladaas ciriiriga ah qofka maantay nool oo jooga oo ilaahay uu wax siiyey wuxuu soo gelayaa waxa uu bixiyo aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaddaraa ma aha mu'minku ama munfiqu ma aha xaaladda barwaaqada qofka wax bixiya ma aha keliya xaaladda culayskaa qofka bixiyo weeye fadliga weynna asagaa qaadanaya fadliga weynna asagaa qaadanaya waa inuu markuu qofku feejignaadaa oo khayrka u feejignaadaa waa inuu khayrka u firfircoonaadaa waa inuu walaalkiisa muslimka anfacaa waa inuu wuxuu qoodin karo qoodiyaa wuxuu raashin u gadi karo u gadaa kuwa deyn ka bixin kara deyn ka bixiya kuwa dhowrsoon oo cidna wax su'aalanahayn caawiya waa inuu arinta iyada qofka ilaahay uu wax siiyay bulshada uu kaga qayb qaata oo u istaaga masaajidu waa meesha dadka khayrka looga booriyo markastana ay tahay in dadka in la caawiyo laga sheegayo waa meesha bulshadu iskugu timaado waa meesha dadka laga tawjiihinayo waa muhiimada weyn oo masaajidu ay u leedahay islaamka waa midii nabigu markuu madiina yimid calayhi salaatu wassalaam asagoo gurigiisii aan dhisanin uu bilaabay inuu masaajidka ka hormariyo waayo guryaha waa la kala leeyahay laakiin beydka ilaahay baan la kala lahayn meesha ummadda muslimiinta xaajaadkooda iyo danahooda laga caawinayo oo khayrka laga gaarsiinayaa waa buyuudda ilaahay waa meesha la raba ilaahay in laga barya in badan ilaahay cudurradan inuu naga qaado waa meesha la raba ilaahay in loogu tadarruco oo loo cararo weeye waa meesha la raba iyadu inay noqoto mid aan la xirin taariikhda muslimiintana maynan dhicin wixii dawladda imaanahayay 1400 oo sano ka badan taariikhda muslimiinta marsuum xukuumi ah oo madaxweyne soo saaray oo amar ah cudur faafay masaajid ha loo xirmayna dhicin way dhacday masaajid ayagu xirmay maxay u xirmeen wax ku tukada la waay dadkii baa baaba'ay cudurkii baa batay wax masaajidkii soo gaara ayaaba la waay asagii baa iska xirmay basro oo kale cudurkii ka dilaacay oo taacuunka ahaa taariikhda waxaa qoran inuu ka tegay hal wiil oo yar oo dhashay markaas kaliya ka badbaaday dhammaan bulshadii basra degnida u dhamaatay masaajid oo wada xirmay inay masaajidu ayagu iska xirmaan ma ahane marsuum xukuumi ah oo amar dawladeed ah oo la soo saaray oo madaxweyne muslimi uu soo saaray oo masaajidu waa xiran yihiin asbaabaha cudur hebel bay la xiran yihiin ahna taariikhda lama hayo ayaga iska xirmay dadku markay baabaa laakiin maxaa la rabaa feejignaanta iyo xadarka cudurradu markay yimaadaan la doonayo waxa kamid ah qofkii cudurkan isku arka oo dareema qufici iyo calaamadaha la sheegayo oo uu leeyahay inuu asagu xaroodo waa min diin farqi baana u dhaxeeya qofkaas mariidka oo cudurka dareemay iyo qofka saaxiga oo caafimaad qaba oo waxba aan qabin cudurdaarka aan haysanin farqi baa u dhaxeeya adiga hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala ka caafiya aadareentid muslimiinta masaajidda ha ku dhibin hana imaanin cudurkan cudur gudbayo faafayo weeye biidni illaahi buna ku gudbaya asagu iskama gudbee gurigaaga ku eko waa ka nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam qof jiran yuusan u gelin oo uma taqaana ku darmin dadka caafimaadka qaba waa asbaabaha la raba inaad qaadatid dadka kale oo imaanaya laftigooda waxyaalo badan oo xadar oo ay qaadan karaan baa jira qofku inuu isku dayo inuu cimaamadiisa ku sujuudo hortiisa dhigto iyada ku sujuudo markuu sujuudahayo inuu gurigiisa ka soo weysa qaato oo iska daaya meelaha faylka inta weysada loo galo nadaafadu hadii hadda la nadiifiyo markiiba halaabaysa midba aakha iskaga tufahaya midba candhuufti ku tufahaya midba ma taqaana dharkiisa oo dhan u wada halaysan yahay marka dadka faylka u galaya meelaha weysada ee masaajida inta iska daysid gurigaaga ina ka soo weysa qaadatid baa fadli badan soo saas moogi gurigaaga ina ka soo weysa qaadatid baa fadli badan caafimaadkana ayada ku fiican ka soo weysa qaada gurigaaga wixii aad sameyn kartid oo didaala samee nadaafada masaajida in laga taxadaro
waqtiyada lagu tukanaya salaadaha inaan la dheerayn qunuud in la qunuudo inaan la dheerayn qiraa'ada ee la soo gaabiyo markuu qofku tukado inuu iska baxo dantiisa uu raacdo wax aan ilaalin karna ayaa yar ilaahay inuu ilaaliyo maahan wax aan qabsan karna ayaa yar ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu inoo fududeeyo maahan annagoo asbaabahaas la imaanayna masna jumcada iyo jamaacaadka inaan oogno baryaha ilaahayna aan badino sabab bay u noqonaysaa ilaahay cudurka inuu naga qaado dad badan hadda waxay aaminsan yihiin cudurkaani waa jira waana faafa waana sida aqlabka ah maxaa yeelay calaamadihiisii oo dhan dadka way ka wada muuqdaan guryaha dadku waa daadsan yihiin intii calaamoo laga sheegay weeye meelo badanoo lagu baaro waxa leeyahay qof walba waxba kuma hayna gurigaaga iska tag cudurkii baa qabtaa laakiin waxaa muuqataa ilaahay inuu ummaddan u fududeeyey oo uu sidii hargabkii oo kale uu ku maray oo uu siiba baxahayo badankoodaba ku dhacay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo ladifay oo noo fududeeyey dacfigeenna iyo tabardaradeenna dhaqaale yarigeenna caafimaad aanna waxba ka ogayn nadaafad xumadeenna dhibaatadana haysataa laga yaabaa hal mu'min ah oo ilaahay ducada ka aqbalay oo noo duceeyey ilaahay noogu naxariistay ducada ilaahay aan badin sadaqadana aan badin dadka baahan aan saacidno ilaahay waa nagu caafinayaa balaayadana ilaahay waa nooga rafcinayaa masaajiduna insha Allah waa noo badbaadayaan salaadaheena iyo cibaadaadkeena iyo tartiibkeena sidii uu ahaa ayuu insha Allah noo noqonayaa khayrkaas aan ku didaalno